بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلكي بسلان كنا سلوة دقيسي لبرنامجك حوغا لمانتي عاوة قضبضا برنامجك أدكم الدونتانا وحا كمن دقندونا وسيارة خرمرين تمالية جمهورية سوماليلان oo kulan u qabatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan kulankaasna waxa ku saabsanaa sidii wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ay gacan uga siin lahaayeen koruqaadka dakhliga dalka waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Yuusuf oo hore loo oran jiray gacan libaax Maxamed Cali Aadan gabagabada barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan waxaa dhageysanaysaa dhabta miyaan ku saaraa gabagabada barnaamijka xoogaale ee ka bogan doontaane aynu soo qaadano xubinta daafurka barnaamijka u noqonaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay kulan u qabatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan kulankaasina waxa ku saabsanaa sidii wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ay gacan uga siin lahaayeen dakhli soo saarka dalka ama dakhli ururinta dalka Soomaaliland Muuse Warsame Guuleed ayaa qodobkaasi inoo haya mahadsanid Saleeban wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan u qabatay agaasimayaasha guud iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda kulankaasi waxa lagaga hadlayay sidii agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo gudoomiyaasha hay'adaha madaxa bannaan ee dawladdu ay gacan uga geysan lahaayeen ururinta dakhliga kulanka waxa lagu falanqeeyay sida ugu habboon ee la iskaga kaashan lahaa sidii loo soo saari lahaa dakhliga miisaaniyadda qaranka ugu horreyn waxa halkaasi ka jeediyay hadal agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka ujeedada ugu muhiimsan ee kulankan aynu u qabanay maanta waxa uu daba socdaa kulan hawleed bila ka hor aynu halkan isugu nimid kulankaas oo aynu dul istaagnay maalintaas doorka agaasimaha guud iyo gudoomiyaha hay'adaha madaxa bannaan ee dawladdu ay ku leeyihiin socodsiinta barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda gaar ahaan dhinacyada kharashka iyo miisaaniyadda runtii kulankaas oo wax fiican oo qiimo leh uu ka soo baxay isla markaana aan idinka mahad celinayno sidii mas'uuliyadda lahayd ee kulankaas aad uga qayb qaadateen talooyinka aad nasiiseen tilmaamaha aynu kala qaadanay iyo sida ay kulankeenaasi wax uga bedelay hanaankii dawladdu ay u maamuleysay kharash bixinta khaasatan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu marka ay maamulayaan amba ay bixinayaan kharashaadka dawladda kaas oo runtii aynu markhaati ka wada nahay isbedelka wanaagsan ee ka soo baxay kulankeenii u dambeeyay waa doorka agaasimaha guud waa doorka sharci ee agaasimaha guud iyo gudoomiyaha hay'adaha madaxa bannaan ay ku leeyihiin gacansiinta ururinta dakhliga iyo kobcintiisa
waxaanu halkan marka ugu horeysa aanu idinla wadaagi doonaa in aanu idinla socodsiino halka ay marayaan dadaalada dawladdu ay wado ee ay ku dardargelinayso kuna kordhinayso dakhliga qaranka oo marka hore waa la socodsiin si aad u ogaataan halkay wax noo marayaan qodobka kalena waxa uu ka hadli doonaa oo waaxda cashuuraha beriga iyo saraakiil farsamo yaqaan ay inoo faahfaahin doonaan waajibaadka sharci ee sharciga maamulka maaliyadda uu saaray guddoomiyayaasha hay-adaha madaxa bannaan iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waajibaadka ka saaran ilaalinta dakhliga dowladda ee wasaaradaha iyo hay-adaha ay ka tirsan yihiin ka dhalanaya tusaale ahaan mas-uuliyadda sharci ee agaasimaha guud ka saaran in uu ka reebo dhammaan cashuuraha iyo dakhliyada waajibka ah miisaaniyadda dowladda dhexe ee uu maamulayo taa micnaheedu uu yahay in uu wixii kharashaad ah amba mashaariic ah ee uu ka fulinayo miisaaniyadda dowladda dhexe inta aanu qalinkiisu ku dhicin in uu ilaaliyo oo uu hubiyo waajibaadka mas-uuliyadeed ee ka saaran cashuurtii iyo dakhligii ku waajibka ahaa inuu ka reeban yahay qodobka kalena waxa uu ka hadlayaa isla miisaaniyadda aynu maamulayno gunooyinka iyo mushaharooyinka aynu ka bixinno inuu mas-uulku uu hubiyo in ay ka hadhay cashuurtii shaqaalaha iyo gunooyinka ee uu mas-uulka ka ahaa taasi waa miisaaniyadda dowladda oo annaguna waanu idinka dambaynaa xisaabyaha guud iyo hanti dhowraha guudna way naga dambeeyaan taa barbarkaynu ka wada hareerahaynu ka wada joognaa laakiin qodobka kale ee isna xusida mudan ee maanta in badan aynu dul istaagi doonaa waxa weeye miisaaniyadaha badan ee runtii kaalmooyinka ah ee ay wasaaradaha iyo hay-adaheennu ay helaan in aad iyadana ku ilaalisaan wixii mashaariica cashuuraha mashaariicda in aad ka jartaan wixii gunno iyo mushaharana in aad cashuurta mushaharka iyo gunnooyinka ka reebtaan taasoo runtii aada moodo in aynaan in badan aynaan warkaas aynaan hayn marka laga reebo wasaarado kooban oo runtii guud ahaan magaca wasaaradda aan uga mahad celinayno dadaalada ay ka sameeyeen ka reebista cashuuraha mashaariicaha iyo kaalmooyinka ay ka helaan wax ka baxsan ee ka baxsan miisaaniyadda waxaan runtii aada iyo aada aan ugu mahad celinaynaa oo aanu magaca wasaaradda guud aanu uga mahad celinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka doctor xirgeeye oo runtii si qiimo leh si joogto ah bil walba telefoonkiisu isagu nagaga soo horeeyo dheefta yar iyo kaalmada yaru meel ka helaba uu ka soo ururiyo tilmaamaha aynu maanta wadaagi doono oo dakhli fiican runtii kusoo kordhiyey kana soo xareeyey mashaariicda dibadyaalka ah ee ka baxsan miisaaniyadda inahaasi waxa weeyaan waa meelaha runtii aynu maanta falanqeyn doono laakiin waxaan xusid mudan haddii aan agaasimayaasha guud iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee dowladdu haddaydaan hareeraha naga istaagin oo aydaan naga gacan siin runtii waxa dowladdeenna iyo xukuumaddeenna ku adkaan doonta in aynu ka jawaabno baahiyaha bulshadeennu u qabto in ay xukuumaddu adeegi gaadhsiiso iyo in aynu baahiyaha aynu u qabno in aynu fulino mashaariic aynu ku kobcinayno kuna korinayno dhaqaalaha dalkeenna markaa waxaan isleeyahay waa qodob sida amniga aynu u wada ilaalino ee aan amnigu cidna ugu suntanayn ee muwaadiniinta kala duwan iyo mas-uuliyiintu amniga ay dhinaca uga wada joogaan waa qodobka labaad ee soo raacaya ee aan cidna ku calaamadsanayn ee ay tahay inaynu qaran ahaan iyo dowlad ahaan iyo mas-uuliyad ahaan aynu hareeraha ka taagnaano dakhli la helayaaba horumarkeenna iyo howlsocodsiinteenna iyo horumarkeennu markaasuu hore u soconayaa dhanka kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda mudane Farxaan Aadan Haybe oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay
ayaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay waxa uu kula dardaarmay in ay wasaaradda maaliyadda gacan ku siiyaan sidii ay u soo saari lahayd dakhliga waxaana ka mid ah dalkiisii kelmadu baan ka qaadan doonaa weedhii maxaan ku dhahdaa agaasimaha guud ee maaliyadda oo dakhli la helayaaba horumar wayna la joogaa waxaan u arkaa shirkan inuu muhiim yahay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda iyo qarankaba inuu muhiim u yahay haddii dakhli la waayo oo dakhliga aynu ku talagalnay oo daraskeeni soo xaroon waayo ama aynu farsamooyin aynu ku kordhino weyno suurtagal maaha in wasaaraduhu sacyiga ay u ordayaan iyo hay-adaha dowladduba inay culays ku saaraan wasaaradda maaliyadda in miisaaniyad loo kordhiyo ama toodii hore loo sii daayaa waxay nagu noqonaysaa way naga gar joogaan marka inaynu la shaqayno oo aynu wasaaradaheena iyo hay-adahaba cid kasta oo wasaarad walba iyo hay-ad walba dad baa la macaamilo u yimaada inay maskaxdeenna ku sawiraato mar walba ururinta cashuurtu iyo ahmiyadda cashuurtu leedo aynu noqono dadka advocatorieska ee u hadlaya oo aynu shaqadeenna ku darsanno waxaan arkaa inay muhiim tahay ka hay-ad ahaan diyaar baanu nahay inaan wixii suurtagala ee itaalka yaa la shaqayno guud ahaanna inaynu la wada shaqaynaa waa muhiim waxaa kaloo iyaduna muhiima dee annagu culays baanu ku saarnaa wasaaradda maaliyadda shaqaalaha xuquuqdiisa oo waxaa ka mid a mushaharkii in loo kordhiyo waragaasimayaasha guud mushaharkii ha loo kordhiyo shaqaalaha mushaharkii ha loo kordhiyo mushaharku in loo kordhiyo intani kuma filla waxaa ka mid a xaqsiintii pensionkoon iyadana imaka culays ku saaran lena sanadkan 2021 ha la bilaabo shaqo qaran baa ka mid a ku-meelgaadhkiiyo dhammaantiin culays idinku ahaayo cidda culayskeedu dhaqaale ku dhacaya wasaaradda maaliyadda marka waxaasoo dhan haddaynu culayskana la doonano oo aynu culays kasta dusha ka saarno dakhli ururintii iyo u sacyigii iyo wacyigelintii dakhligana aynaan kala shaqaynay shaqooyinkeenna kale ku fogaano waxaan u arkayaa inay tahay uun dee innaga lafteenu inaynaan diyaar u ahayn markaa horumarkii markaa waxaan odhan lahaa gacmahaan isu qabsanno inaynu ka wada shaqayno ilan hal xukuumad baynu nahay hal fishanna waynu leenahay maxaan ku dhahaa istaraatiijiyadana guud ahaana dee national development goalskaasoo maynu wada contribute garayna wax ku aynu doonayn la gaadho marka waxaan odhan lahaa dardaarankayga weeye kelmad kale kumaan lahayn aan gacmaha isu qabsanno in dakhligu inoo noqdo priority ahmiyadda koowaad in wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga qaranku kobco wasaaraddu male waa waxaynu ku shaqeyna innaga inoo qaybisaa marka aynu gacmaha isu qabsanno maskaxda iyo muruq iyo maanka baan isugu geynayo aqoontaba sidii dakhliga qaranku u kobci lahaa cashuur bixiyayaashana aynu raali gelin lahayn adeeg wanaagsan loo sii lahaa taasina waan ku dardaaraya waayo mar kastoo adeeg wanaagsan la siiyo is-aaminka cashuur bixiyaha iyo xukuumaddu aynu inagu kabno waa mar kasta oo dakhli badani ka soo xaroonayo ay aaminayaan cashuur bixiyuhu waxa loo qabanaya ku soo noqonaya gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa halkaasi hadal mahadnaq iyo dhiirigelin isugu jira ka jeediyay waxaana kamid ah halkiisii kulankeenin wuxuu lahaa laba ujeedo mid waa ujeedda caama midna waa ujeedda gaara ujeeddada caamkii waxa weeye sidii aynu isaga kaashan lahayn dakhli ururinta sidii markaa aynu u heli lahayn waxay nooga qoondaysan miisaaniyadda dakhliga miisaaniyadda inooga qoondaysan oo inoo suurtagelinaya markaaynu dee isticmaallo miisaaniyaddeeda hay-ad walba in isticmaasho miisaaniyaddeeda ujeeddada kale waxay ahayd in aanu idinku wacyigelinno cashuuraha inaga maqan ee idin soo mara sidii loo qaadi lahaa iyadana idinla qaybsanno documentska aanu idin qaybinay oo sheegaya cashuuraha iyo tacriifahaba iyadana idin soo gudbinno codsi inaad nagala hawl gashaan dakhli ururinta xidhiidhkeenu waa inaanu ku ekaanuun kharashka laakiin dakhligana hay-ad waliba iyo wasaarad waliba rool bay ku leedahay inay roolkeeda mataqaana ciyaarto cashuuraha halka ka soo gelaysaan waa saddex meelood meel waxa weeye kuwo ay tahay inaad qaadaan oo hay-adaha iyo wasaaradda qaar badda jiaarka ayo soconka maaha waa cashuur idin soo maraysa oo qaadaysaanba midna waxa weeye waa cashuur aad ku khasbaysaan qof idiin baahan inuu cashuurta lagu leeyahy soo bixiyo waxaad bixinaysaa amba liisan amba permit baad bixinaysaa markaa waa permitkaa iyo liisankaa siin maysid qofka ilaa iyo uu soo qaato cashuur
cashur clearance tax clearance loo soo qaato marka waa isbaar cashuurtu sideedaba mar haddii dowlad ba leeyahay amba state ba leeyahay waa waxaan laga maarmayn oo cid ka maarantay dunida ma jirto laakiin waa xoolo khasab qofku si kastuu muwaadin yahay marka la jeclo timaado qofna ma raba jeebkiisa waxa ku jira inuu kula qaybsado dabcan haddii qofku uu dee muwaadinimada ay ka dhabtahay way ka fududahay xanuunku dareemaya uu ka fudud yahay ku dareemaya kaan muwaadinka ahayn uu haysta waxaa jeebkiisa ka baxay inuu jeebkaaga galaayo kolkaa maadaama ay tahay maxaan idhahdaa xoolo dirqi waxaa loo baahan yahay runtii in laga howlgalo qodob kalena waxa weeye cashuurta idinka soo galaa waa cidda cashuurtii ku waajibtay ee jidkiina soo martay inaad ku wacyigelisaan cashuuraha lagu leeyahay xitaa haddaydan ka qaadi karin amba aydan ku khasbi karin laakiin inaad wargelisaan haddana wax lagu leeyahay cashuurahaas buugga tacriifta ee idin hor yaalla waxaa ku yaalla dhowr iyo konton cashuurood baa ku yaalla cashuuraha qaarna waa kuwa caama qaarna wasaarada gaara bay khuseeyaan marka su-aasha waxa weeye halkan halkee baynu uga sii gudbaynaa maxaynu kala tegaynaa albaabkaa markaynu ka baxno shirkeenna horta waxaan runtii aan jecelahay ka codsanayaa qolada cashuuraha beriga gaar ahaan in wasaarad walba iyo hay-ad walba si gaara ugu diro cashuuraha khuseeya kuwa caamka iyo kuwa gaarka khuseeyaba iyo tafaasiil sida loo qaadayo waxaa kaga aadan hay-adda ama wasaaradda waxaan kaloo doonaya runtii inaanu idiin sameyno helpline xafiis amba cid loo xil saaray gaara oo wixii su-aaleeya wasaaradaha iyo hay-aduhu ay hayaan in looga jawaabo in markaa cid u jawaabta inay helaan haddaad wax shaki ka qabto tolma sidana ama sidana inaad telefon aad la hadli karto dabadna kaaga jawaabo ku idhahda cashuurta sidaa weeye xaaladeedu kolley halkan waxaa laga dhawaajiyey baahida loo qabo in stampska amba farankaboolaha lagu dhajiyo waraaqaha waxaa laga yaaba inaydaan hayn xisaabiyayaasha ayaanu siin doonaa u keeni doonaa maxaa dhahay farankaboolayaasha loo baahan yahay cashuurtu laba xanuun bay leedahay mar waa lacagta marna waa habka loo bixiyo mararka qaarkood habku qofku cashuurta u bixinaa kaga xanuun badanbaba cashuurta bixinteeda qadarka marka qofka la warwareejiyo ee la yidhao kaana soo mar berrina kaale saa dambe kaale kan kaale qofka wakti baa ku socda waa isaga waa ku cost marka annaka waajibkana saarin waxa weeye sidii loogu fududayn lahaa cashuur bixiyaha inaan la dhibin oo mararka qaarkood haddii la samayn karo meel keliya qofku uu cashuurtiisa ku wada baxsado waxay doontaba ahaatee cashuurtiisa iyo fiiskiisa iyo lisankiisa iyo bermitkiisa wixii dowladda uga baahan tahay one stop shopping waxaa ka gudbo markii maalinba meel loo dir lahaa inta badanna ganacsatadu waxay ka cawdaan habka looga qaado cashuurta askari baa u imanaya waa loo hanjabaya albaabkaa lagu xidhayaa maarata jeelkaa la geynaya booliiskaa la geynaya waa runtii waa mararka qaarkood way nagu kalifaysaa laakiin ma qurux badna innaka iyo cashuur bixiyaana way xumeynaysaa cilaaqaadkeena marka annaka waajibkana saaran waxa weeye sidii aan u fududeyn lahayn cashuur bixiyaana runtii waxaanu aragnay customer annaku ismaarno booliis khasab kaga qaadayo qof wuxuu haysto gacantiisa ku jirta lakin waxaanu arnaa dadka waxaanu arnaa cashuur bixiya inuu customerkayga yahay annanu nahay adeeg bixiyayaal inaanu nahay cashuur bixiyaana u fududeyno sidii adeega bulshada u baahan yahay isaga laftigiisu loo gaarsiin lahaa idinkana waxaan idinka rajeynaynaa inaad doorkiina qaadataan dakhli ee miisaaniyadda
haween baa qaran hagaag haween baan hadima fiirin ugu booran la eego qodob wacigelineed oo ku saabsan xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka iyo carruurta dastuurka jamhuuriyadda Somaliland xubintiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa xuquuqda qofka xorriyadka asaasiga ah iyo waajibaadka saaran muwaadinka qodobka 12aad xubintiisa labaad qodobada la xidhiidha xuquuqda iyo xorriyadka asaasiga ah waxa loo fasiraa si waafaqsan bayaanada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee dastuurka ku xusan tusaale ahaan qodobka 36aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland waxa uu si gaar ah uga hadlayaa xuquuqda haweenka waxaana uu leeyahay xuquuqda xorriyadka iyo waajibaadka dastuurku xaqiijiyay haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecada islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane xukuumaddu waa inay dhiirigelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku leeyihiin inay ka xoroobaan dhaqamada aan shareecada waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damiirkooda haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in ay hanti yeeshaan maamulaan kormeeraan adeegsadaan gudbin karaan si waafaqsan shareecada si sare loogu qaado aqoonta iyo dakhliga haweenka iyo weliba daryeelka qoyska haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in loo fidiyo waxbarashada dhaqaalaha qoyska iyo in loo furo dugsiyada farsamada iyo xirfadaha gaarka ah iyo kuwa waxbarashada dadka waaweyn sidaas si lamida ayaa xeerarka caalamiga ah ee dastuurku xusayaana ay uga hadlayaan xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka iyo carruurta tusaale ahaan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee loo soo gaabiyo UDHR qodobkiisa saddexaad waxa uu odhanayaa qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu noolaado xor ahaado isla markaasina nabadgelyo buuxda helo qodobka 8aadna waxa uu odhanayaa qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo magdhow u dhigma xadgudubka loo geystay ee ka dhanka ah dastuurka iyo sharciyada kale ee damaanad qaadaya xuquuqdiisa asaasiga ah waana inay go'aamiso maxkamadda awoodda u leh haddii aynu eegno heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda carruurta ee loo soo gaabiyo CRC heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda carruurtu waxa uu ka hadlaa xuquuqda carruurta iyo in mar kasta la eego waxa carruurta dantoodu ay ku jirto haddii ay noqoto arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo caafimaadkoodaba haddii aynu eegno haddana heshiiska caalamiga ah ee ciribtirka dhammaanba noocyada takoorka ee haweenka ka dhanka ah ee loo soo gaabiyo afka qalaad siidow waxa uu ka hadlayaa in ay reeban tahay dhammaanba nooc kasta oo takoora kana dhan ah haweenka haddaba si amuurahaasi aynu ka soo sheekaynay ee ay damaanad qaadayaan dastuurka jamhuuriyadda Somaliland iyo xeerarka caalamiga ah iyo baaqyada caalamiga ahiba aynu u ogaano isla markaasina aynu ugu dhiirigelino bulshadeennu in laga fogaado arrimahaasi aynu wada dhageysanno khadar qorane yuusuf oo ah madaxa qaybta ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kaalmada sharci ee hay'adda NRC haweenka iyo carruurta gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacayaashu waa kuwa ugu badan uguna nugul ee la kulma xadgudubyada iyo gaboodfallada jinsiga ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sidaa awgeed waxa waajib ku ah hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba ee ku shaqada leh in ay qaadaan tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadka nugul iyo inay cadaalad helaan markii dhib loo geysto kadib fariintani waxa idinka timi hay'adda NRC oo kaashanaysa xarunta bini'aadanimada ee Boqor Salmaan haween baa qaran hagaag haween baan hadima fiirin ugu booran la eego waxaa dhegeystayaa qormada labaad ee barnaamijka xoogaa leh maanta iyo caawa waxaanu ku eegi doonnaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan xafiiskiisa kula yeeshay maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Yuusuf oo hore loo oran jiray gacan libaax Maxamed Cali Aadan waxaana wax ka weydiiyay guud ahaanba dugsiga iyo waxyaabihii u dambeeyay ee dugsigaasi ay ka qabteen maadaama oo dugsigaasi hore loo oran jiray gacan libaax ay wax ka qabteen isla markaana ay hagaajiyeen dhalinyaro ka baxday waqtiyo hore oo la baxay urur
gacan libaax foundation la yidhaahdo. haddaba waa kan maamule maxamed cali aadan oo waraysigaasi aan kula yeeshay xafiiskiisa. iskuulka warbixin yaroo kooban haddaan idinka siiyo dhismihiisu waa 20 fasal 3 xafiis 2 laab science lab iyo computer lab hal library oo wax lagu akhristo ama buugta la dhigo hal dhismo oo loogu talagalay hablaha oo loo yaqaano girls friendly space. iskuulka waxa dhigta in ka badan hadda 1200 arday isugu jira saddexda form ee form 1 form 2 iyo form 3 inamada iskuulka dhigta waxay ka badan yihiin 600 habluhuna waa ilaa 550 marka tiradoodu aad bay isugu dhigdhowday lab iyo dhadiga kalaasaday ku dhigtaan waa separate ama kalaasyo kala gaar ah oo qolo fasal gaar ah dhigata da'da iskuulka u badan waa inta ka dhaxaysa 15 jir imika qaar ka yarbada soo galaybe 15 jir ilaa 20 jir waa average sidii u badan yihiin ardaydu macallimiinta dugsiga ka hawlgasha 41 macallin oo intooda badan wasaaradda ka diiwaan gashan oo bayda way jiraan mid iyo laba aan wasaaradda ka diiwaan gashanayn oo baahir nagu qasabtay inaan qaadano iyagana insha Allah waxaan ku tala jirnaa in macallimiin rasmi ah noqdaan oo shaqaalaha wasaaradda ku jira 10 maado iskuulka lagu dhigtaa marka lagu daro computerkana oo 12 maado laakiin xiisas kala galaa class kasta qaataa waa ilaa 12 maado oo waxa ku jira laabkii baa ku jira computerkii baa ku jira waa kuwaas admin teamka ama teamka maamulka iskuulka waa ilaa 8 qof maamulaha iyo shaqaalaha kale maamulka xigeenka cashier-ka student affairs-ka dadka qaabilsan attendance iyo xaadiriska kuwa qaabilsan 8 qof oo noocaas ayaanu nahay xiisadaha toddobaadkii class kasta loo galaa waa 32 xiisadood baa laga rabaa fasal kasta ama arday kasta inuu qaato marka waa ka warbixinta kooban ee iskuulka horta systemka dugsiga u shaqeeyo haddaan isna in yar raaciyo waxa weeye aroortii waxaan soo galnaa inta ka horeyso 7 badanka ardayda waxa la waxaan galaa fasalada galaan 7 xiisadahana waxay bilaabaan 7 iyo 10 daqiiqo nus saac waxaan u baxnaa marka ay 10 ka harsantay ruuc marka 4 xiisadood baan galnaa nus saac ka hor ama break time-ka kadibna 3 xiisadood ama 2 xiisadood kolba maalmaha qaar ayaanu galnaa waxa jira saf aroortii ardayda aan safino oo orientation iyo wacyigelin iyo kolba wixii soo kordhay iyo anagoo ugu yeedhayna dad iskuulka ka baxsano tusaale ahaan wadaadada iyo dadka bulshada ka dhex muuqda ee aqoon-yahanka iyo abwaaniinta iyo waalidiinta laftigooda iyo ayaanu ugu yeedhnaa oo xiisaska kala qayb gala ama safka kala qayb gala oo ardayda halkaa kala hadla wuxuu leeyahay iskuulku hab xaadiriso lagula soconay ardayga imaanshihiisa fasal kasta waxaa loo gelayaa maalintii 2 jeer 2 jeer waa la xaadirinayaa dabeedna waxaa la ogaanaya ardaygaas inuu maqan yahay iyo inuu joogo marka maalintaaba aad u maqnaado systemka ilmaha waxa ku jira in database aanu samaysanay marka waalidka lala xiriirayo la leeyahay maanta xagu ku maqan yahay ma joogay marka waalidintana xiriir fiican baa leeno waxaanu ku dhiirigelinay inta aanan anagu la hadalba in iyagu soo hadlaan marka halkaana waxa naga dhaxaysa waalidiintii waxa naga dhaxaysa wada shaqayn fiican waxa jira iskuulka sidoo kale xiisado dheeraad ah lagu bixiyaa ama aroorta hore ha noqoto ama gelinka dambe waxa noqotay waqtiga aan xiisadahan caadiga aan la qaadanayn ayaa xiisado dheeraad ah lagu bixiyaa oo gelinka dambe oo kale qolada imka ka baxaysa ee form 4 oo kale xiisas caadi ah iyo timetable gaar ah ayaa loo dejiyay iskuulka qaybo ka mid ah waa 2 shifts ama double shift waa 2 gelin oo gelinka dambe oo kale ardayda form 1 aad u badan waxaan u sameynay 2 qaybood baan u sameynay ilaa 4 fasal waxay soo galaan gelinka dambe oo hawshooduna iyaga si fiican bay u socotaa marka waa ka sidoo kale iskuulku wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan teacher evaluation system macalinka lagu qiimeynayo lagu dabageli oo ilaa 3 macallin oo kuwa wax dhiga aan ahayn oo macallimiinta dabagasha oo macnaheedu monitoring ku sameeyo oo waxay dhigayaan iyo qaabka wax u dhigayaan iyo mentors la yiraahdo macallin mentors la yiraahdo ayaa iyagu sidoo kale dabagala macallimiinta oo maxaan ku raahdaa hawsha ku jira iyaguna marka system guud ahaan 90% baan oran karnaa in ka badan uu saxay waa saxdi waxaan kaloo wax ka weydiin lahayn dhawaan waxa la asaasay urur la magac baxay gacan libaax education trust ama egas gacan libaax foundation wax badan bay duska qabteen idinkoo aad iskaashanaysaan
bal hadda waxaad iftiimisaa kaalinta wax ku oolka ee ururkaas kusoo kordhiyey dhismaha iyo bilicda dugsigan sheekh ibraahim sheekh madar egaska Calibaah. waayahay hawshaas way jirtaa maasha allah horta dugsiga markaan uu bilaabayba maamulaha la iga dhigay bil ama 2 bilood malaa markaan joogay waan malaynaya waxaan kulanay koox kamid ah ardaydii ugu horeysay ee ka baxday iskuulka maaha kuwii dhawaada waa 8-tamaadkii 8-8 ilaa 8 qex intii ka horeysay weeyaan nimankaasi oo yidhi anaga intan dambe iska daaya horta anagoo is soo abaabuleynay nimankaasi dibadda ka yimaadeen qaar ka mid ah halkana qaar badan baa jooga dabadna way yimaadeen waxaan wada sameynay WhatsApp group mahadsan dugsigayga la yiraahdo WhatsApp group kaas aanu hawshii ka bilownay marka odayaal iyo islaamada u badnaayna waa dhalinyarada cuslaatay 1980 iskuulka baxday laakiin kuwan dambe 2000 intan ka dambeysay ma yahayna kuwan iyaga hawshoodii iyaga soo wadnaa imikana insha Allah marka ilaa 300 qof baan ururnay adu ma sha Allah aad iyo aadna halkan uga mahadnaqaya anagu hawshan iskuulkii waxaan ku jirnaa inta badan iyo shaqadayadana iyaga soo shaqeeyay is abaabulay dhaqaale soo ururiyay fikir keenay dabeedna waxay qabteen waa arki doontaane hawl aad u cajiib ah oo loo bogo iskuulka gabigiisa waxa ku sameeyeen dayactir fasalada waxa la wixii sibirku ka dunsanaa dib ay u habeeyeen iskuulka gabigiisa rinji way mariyeen waliba oo ka biyay waxa la wixii iskuulka ku dhex qorqornaa imika iskuulku waa nadiif wax gidaarada ku qorqoraarka bay sid uska ma jiro sidoo kale barxadii u dhaxaysay fasalada ee dhexe gabigeeda waxay dhigeen marmar aad u qurux badan bilicdii iskuulkan aad u soo saartay deegaanku wuxuu kamid yahay waxyaalaha ardayga waxbarashadiisa ka qayb qaata hadduu deegaanku liito waxbarashada way liidinaysaa marka aad iyo aad bay niyadii macalinka kii ardayga iyo tii waxbarashada laftigeedaba kor ugu qaaday imika waxaanu dareemaynaa in iskuulka culays badan oo xagga ardayda haysto ardayda qaar waanu celinaaba waxaan nala bedel ma hayno kuwii la qorayo kale imika waan iska joojinay markay 10 fasal ku dhawaadeen ardayda cusub ee soo galaysa iskuulka oo registration-ka waan xidhan waxaas oo dhan waxa uu soo oran karnaa qayb weyn ka deegaanka iskuulka aadka loo hagaajiyay magaca waxa yiraahdaa waana la diiwaan geliyo wasaaradda qorsheynta waxaas oo dhan waa soo mareen waxa la yiraahdaa gacan libaax education trust baa la yiraahdaa ayaa la yiraahdaa ururkaas intaana kagama ekee imika balaankii labaad iyo wajigii labaad ayay soo wadaan insha Allah waqtiyada fasaxa lagu jiro ee iskuulku fasaxa ku jiro ayuu ugu tala galeen marka balaan labaadna waan leenahay oo intan ka balaaran insha Allah hadii la hayraado in ugu dambeyn maamule waa sidee xiriirka idinka iyo waalidka maadaama loo baahan yahay in maamulka iyo macallimiintu marba dhanka waalidka ku xirnaadaan si ardaygii ka warhayntiisii ay labada dhinacba iska kaashadaan waayahay horta marka waxbarasho la goob waxbarasho maamulka kaliya macallimiinta kaliya wada maamulaan waxa meeshii dad fara badan baa ayaa involved oo ku jira ardaydii waalidkii macallimiintii maamulkii iyo dawladda iyo wasaaradda waxbarashada marka inta iyadba xiriir aad u fiican oo team working oo oran karno ayaa naga dhaxeeya waalidka hadaan ku noqdo waxaanu sameeysanay horta dhammaan ardaygu markuu soo galiyo iskuulka iyo kuwii hore ugu jirayba database baanu sameynay lagu qorayo telefoonka waalidkii ugu yaraan 2 waalid u leeyahay macnaheedu haddii imika la waayo mid aabihi baa telefoonkiisa qorayay haddii la waayo waa in la helaa qofka kale alternative bedeli kara ee waalidkii noqon kara ama walaalkii ha noqdo ama hooyadii ha noqdo qof kasta oo iskuulka dhigta waxa ka qoran ugu yaraan 2 telefoon labada telefoon mar alla markii loo baahdo lagu dhuftaa waalidka haddii warbixin la siinayo haddii loo yeerayo haddii ardaygiisii maxaa la dhahaa uu guuleysto guul looga sheekeynayo haddii uu faldambiyeed sameeyay haddii ay wax ku dhacaanba intaaba xiriir aad u fiican baa naga dhaxeeya waalidiinta haddaan islaamka isugu yeedha oo aroorta baa la yidhaahdo imika waalidka iskuulka dhahan la helo simbali waxaan u malaynayaa 90% in aan ka yarayn in la heli karayo marka xiriir aad u fiican baa naga dhaxeeya waalidiintuna way nala shaqeeyaan halkaa ka sii wadaan baa odhan karnaa ha ka warhayaan waalidiintu ardayda ha ka warhayaan waayo ardaygii meel uu ka baxaa ma jirto markuu waalidkii iyo macallinkii labadiiba og yihiin haddii kale dhexdeenu ka baxaya marka waalidinta waxaan soo jeedin lahaa ardayda aad looga warhayo xilliga iskuulka imanaya ha laga warhayo xilliga ku soo noqonaya ha laga warhayo macallimiintana ha lala soo xiriiro oo ha laga waraysto xaaladooda markasta
maamule dugsigan sare ee Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar egas gacan libaax waa dugsi aad u qadiimi isla markaana arday badan baa ka baxday oo daafaha dunida kala joogta adoo ka faa'iideysanaya fursadda warbaahinta qaranku siisay maxaad halkan fariinta aad uga marinaysaa maxay ay tahay meelaha aan la ilaawi karin buu kamid yahay iskuuladu ama dugsi sare ha noqdo ama dugsi dhexe ha noqdee mar kastoo joogto waxyaalahan xusuustaada ka guureyn ayay ka mid tahay marka inaynu iskuulkii dib u xusno aniga laftigaygan marka idinla hadlay ardaydan ka mid ahaa iskuulka ka baxday marka xusuustayda iyo waxbarashadeedaba qayb weyn buu ku leeyahay iskuulku abaalkiisa ma gudi karno hase haatee bal iskuulkeenu wax ku celino dhaqaale keliya maaha fikir baad gubrin kartaa ardaydaad u iman kartaa maxaan ku dhaha waxbarashada kala hadli kartaa maxaan ku dhahdaa waxyaalo haba badan baad u caawin kartaa ardayda marka waxaan odhan lahaa iskuulkiiba horta noloshaada marna ha noqotee bal iskuulkii aynu wax ku celino insha allah imika qoladaas magaca hore aan idin sheegay gacan libaax education trust hawl weyn bay qabteen hawshaas maxaan ku dhahdaa hawl la mid ah ayaanu filaynaa insha allah ardayda kale ee ka dambeysay kuwaana oo annaga marka waqtigeeda gaadhida soo cilaamin doonee inaan u sameyno insha allah marka waa taa fariintan furaya waad mahadsantahay gaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa maamulaha guud ee dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf egas gacan libaax maxamed cali aadan oo lagu waramayay xafiiskiisa aad u maastay ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahi waliga ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahi waliga macalinkiinu diintii aqoontiyo kagadayda cadaabto anshaxiisa doorbida daya macalinkiinu diintiyo aqoontiyo kagadayda cadaabto anshaxiisa doorbida doqon lagu khasaara dibuqooma mayse doqon lagu khasaara dibuqooma mayse ardayahay dadkeeniyo waalidkiina ha diirsado calankaa dushiiniyo dalku waa idin sugayaa gabagabada barnaamijka xoogaa baynu soo gandhigaysteen heestaa ka soo xuli jiray qolka hadalka ee raadiyo hargeysa wadagarata ayaan filaya heestaasi dhegina ku soo dhacaysa waa heeska ay ku dhegiisu yahay dhabta miyaan ku saaraa allah u naxariistee fanaanadii kisii xaaji aadan xuseen iyo siciid mudhax haydar ayaa heestaasi ku wada looqayn doonaa tan iyo toddobaadka dambe waxaad ku dhaafanaa heestaasi waa farsamadii nuuca baashe cabdi iyo salebaan heedin ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adhiigiyo kalgacaalkii xididada dhamaystira lagama dhawre adhiigiyo kalgacaalkii xididada dhamaystira lagama dhawre ama og tahay dararahan markan dhabaanu seexdaba dhakugu dhadhabayo dhabtay
kaadayo ama og tahay daraarahan kan dhabaanu seexdaba ina kugu dhadhabayo dhabtayda kaadayo tahay amba kugu madhaafeen hawla dhankayga caaga ilaa qabo haddii aad dibitoon tahay amba kugu madhaafeen hawla walow dhaylahaa tahay eed haddana ka dhaqankiyo shada ku wacanta walow dhaylahaa tahay eed haddana ka dhaqankiyo shada ku wacanta dharararagti moog tahay cashaqan wax dheereen yada roob lamuudi laanteedinuu yahay dharararagti moog tahay cashaqan wax dheereen yada roob lamuudi laanteedinuu yahay jacaylkii dhawaan gala dhaxalagama gaare horta inuu dhabkaaya inaan dhudhumiya jacaylkii dhawaan gala dhaxalagama gaare horta inuu dhabkaaya inaan dhudhumiya imika dhudhumiyo miyaansa dhawaada awalba igama dheerayn adabta miyaa ku saara ibtan kula nacaya imika dhudhumiyo miyaansa dhawaada awalba igama dheerayn adabta miyaan ku saara ibtan kula nacaya bal hadabadhala sidii abarkaaga igu qaadangad waan ka fududa hadabadhala sidii abarkaaga igu qaadangad waan ka fududa dhugmadiisu ruuxay u dhan tahay ayuunbu
dhigasho oodku ama og tahay dhigayow manta aan ka awga dhaqayaasha suuqyada la'aan inaan maro ama og tahay dhigayow manta aan ka awga dhaqayaasha suuqyada la'aan inaan maro tahay amba kuguma dhaafeen hawla dhankayga caaga ila qabo haddii aad dibitaan tahay amba kuguma dhaafeen hawla caaga ila qabo cusub dheel qoyaaniyo dhex qotoma cadeediyo igu baxlamuudi cusub dheel qoyaaniyo dhex qotoma cadeediyo igu baxlamuudi moogtahay dhaqsiiyo cadalcaga dhalaaya asiyuma dhiciye abanka dhuranla moogtahay dhaqsiiyo cadalcaga dhalaaya asiyuma dhiciye abanka dhuranla jacaylkii dhawaan gala dhaxalagama gaare horta idabkaaya inaan dhudhumiya jacaylkii dhawaan gala dhaxalagama gaare horta idabkaaya inaan dhudhumiya imika dhudhumiyo miyaan soo dhawaada awalba igama dheerayn adhabta miyaan ku saara dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya imika dhudhumiyo miyaan soo dhawaada awalba igama dheerayn adhabta miyaan ku saara dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya bal haddaba dhala sidii abarkaaga igu qaad degad waan ka fududa bal haddaba dhala sidii abarkaaga igu qaad degad waan ka fududa